السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada kusoo dhawaada janaalkeena. maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeenii ugu dambeeyay aan ku baranaynay af Soomaaliga, isku xirka xarfaha shibanaha ah iyo shaqalka. af Soomaaliga waxaan ka soo bilownay ba, ta, ja. waxaan sameynay waxaan u baranay shibane iyo shaqal ahaan. kadibna waxaan u baranay qaab la iskugu xirayo shibanaha iyo shaqalka oo ah ba, be, bi, bo, bu ilaa iyo aan ka gaarsiino ya, ye, yi, yo, yu. kadib waxaan u gudubnay inaan xarfaha shibanaha iyo shaqalka aan isku xirno si ay ardaydu u bartaan ama dadka u baahan af Soomaaliga qaabka la iskugu xiro shibanaha iyo shaqalka loogana dhigo erayo. erayadaasoo ahaa kuwa macno taabanaya. marka maanta waa cashirkeenii 20aad ee ugu dambeeyay ee af Soomaaliga. af Soomaaliguna meesha ayaan ku ekeysiin doonaa. ciddii u baahan cashiro dheeraad ah WhatsApp-ka nagala soo xiriiri doonaan. marka wixii buugaag ah haynana waa siin doonaa, waana ku sii saacidi doonaa wixii fikir ah. laakiin 20kan cashar waxaan fili doonaa qof walbo bilaab af Soomaaliga u baahan in uu wax badan ka saacidi doono. marka maanta waxaan guda galaynaa saddexdeena xaraf ee ugu dambeysay oo ah wa, ha iyo ya. wa iyo ha iyo ya ayaan guda galaynaa. marka wa'da waxaan ka soo qaadanaynaa 3 eray, ha'dana waxaan ka soo qaadanaynaa 3 eray, ya'dana waxaan ka soo qaadanaynaa 3 eray. marka waxaan ku bilaabaynaa wa'da. xarafka ugu horeeyo waxaan ka soo qaadanaynaa waran. waran ayaan ka soo qaadanaynaa erayga ugu horeeyo ee xarafka wa'da. waran. waran sida sawirka idinkaga muuqato waad u jeedaan. waran. marka waran maxaa ugu dambeeyo qoraal ahaan na'a ugu dambeyso. na'da wax ma ku xigo? mayo, waxba kuma xiga. marka na'da waxaan ku dareynaa ra'da iyo a'da ka dambeyso san aga dhigno ran. markaas waxaan ku sii xije waxaan ku dareynaa wa'da iyo a'da ayaan ku dareynaa. waxaan leenahay marka waran. 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 okay. waran marka waa mid ka mid ah hubka ay ku dagaalami jireen dadkii hore, isla markaana ay ku ugaarsi tagi jireen. sidoo kale intana kalluunka inta aysan soo bixin maqaalintu ay macnaha kalluunka ay ku daban jireen ayagoo waranka ka taagaya. kalluunka kadib ay ka soo baxsan jireen. marka waranka wuxuu ka mid ahaa hubabkii ugu waaweynaa ee dadkii hore ay isticmaali jireen. okay. marka waran waa fahamnay. warankaasoo ah marka mid markii dagaalka la galayo ama fardaha la saaran yahay dadka lagu tuuri jiray. okay. marka waxaan qaadanaynaa haddana xarafkeeni ku xigay ee wa'da ah. waxaan ka qaadanaynaa mid ka mid ah xayawaanada ugu halista badan, waraabe. waraabe. okay. waraabe. wa'da waxaan ku xijinay a, wa. ra'da shaqala raac waxaa leenahay raa. ba'da shaqala raac waxaa leenahay be. waraabe. 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 waraabe waa naqaanaa, waa mid ka mid ah xayawaanada duurjoogta ah kuwaasoo aad u halis badan. okay. waraabe. waxaan xarafkeeni wa'da ka qaadanay 2 eray oo kala ah waran iyo waraabe. waxaan ka qaadanaynaa eraygeena xiga oo saddexaad oo ah warshad. warshad. okay. warshad. war iyo shad laba shibana isku imaadey. labada shibana maxay kala yihiin? ra iyo sha. war shad ayaa isku imaaday, ra iyo sha ayaa isku imaaday. ra'da waxaan ku dareynaa wa'da oo ah wa iyo a'da oo ka dambeysa. war ayaan leenahay. shadna waxaan dheheenahay a'da iyo da'da ku xigta ayaan ku dareynaa shad. marka isku qabo. marka maxaan dheheynaa? warshad. warshad waxaan dhahnay waa meesha waxa lagu soo saaro. warshad waa isla fahmnay. okay. marka 3 eray ayaan ka qaadanay xarafkeeni wa'da waa waran, waraabe iyo warshad. okay. waa isla fahmnay 3daas. haddana waxaan qaadanaynaa xarafkeeni ha'da. ha'da waxaan ka qaadanaynaa 3 eray. 3 eray xarafka ugu horeeya waa wax xarafka ugu horeeya dhammaanteen waa wada jecelnahay. waa hooyo. hooyo. hooyo la'aanta adduunyadu hubaashi
habeenka ma baxdeeno iftiin lama heleeno dadka uma hayaameen dayaxeega joogo sida had ma fuuleen xidig hawada lulato hawo laguma gaadheen hubka laguma tuureen cirka hirarka muuqdo ruuxaad hagaysiyo ushanimaad u haysa hilintoosan weligii ka habaabi maayey hooyoy addoomuhu halkay maanta joogaan adiga u horseede codkayga ma fiicno cafwan laakiin hooyo heestaas waxaa tiriyey abwaan hadraabi allah u naxariisto waxaa ku luuqeeyey maxamed sulaymaan tubeec oo ah fanaankii codka macaanaa asagana allah u naxariisto hadraabi waa uu nool yahay laakiinse qofka nool iyo qofka dhintaba allah u naxariista ayaan leenahay ilaahay naxariistiisa midda guud iyo midda gaar ahba waa u wada baahannahay dhammaanteen marka hooyo waa hoo iyo yo hooyo waa xaraf fudud oo aad u macaan in loogu dhawaaqo luqad waliba haddii ahaaleed maam ummi hooyo way wada fududaa luqad waliba okay hooyo hoo iyo eraygeena xiga aan soo qaadanayna waa hilib ba ayaa u dambeeysa ba'da wax maa ku xiga maya la'da iyo i'da ka horeysa oo la'da iyo i'da ka dambeysa ayaan ku dareyna waxaa leenahay hilib okay hilib waa naqaana waa hilibka la cuno okay ha'da waxaan ka qaadanaa hooyo iyo hilib waxaan ka qaadanaynaa ha'da xarafka eraygeeni saddexaad oo ah habeen waxaa u dambeeyo na maadaama na ay u dambeyso na wax maa ku xiga maya waxaan ku dareynaa bee oo ah xarafka saddexda xaraf oo ka dambeysa shibanaha iyo labadiisa shaqal bee ayaan ku dareyn waxaan leenahay been maxaa ka hore habeen waa naqaanaa waa markii ay maalintu dhammaato habeenka uu soo galayo okay marka habeen waa habeenka maalinkii markuu dhammaado kadib okay habeen okay waa fahmnay marka ha'da waxaan ka soo qaadanay hooyo hilib iyo habeen okay waxaan qaadanaynaa ya'da oo ah erayadii saddexda eray ugu dambeysaan ka qaadanaynaa erayga ugu horeeya waxaan ka qaadanaynaa yaxaas waxaa u dambeeyo sa'da maxaa ka horeeyo xaa marka sa'da waxaa ku dareynaa maadaama ay xaraf uusan ku xigin xaada ayaan ku dareyn waxaa leenahay xaas eraygaas xaas eray ahaana hore usoo baratay waa xaaska la qabo okay marka xaas marka hadda waxaan ka hormarinaynaa yaxaas muxuu noqonayaa yaxaaska webiyada ku nool oo aan dhahno yaxaas webi ama yaxaas badeedka yaxaaska badda ku nool libax badeedna waa la dhahaa yaxaaskaas soomaalidu way dhahdaa marka yaxaas waa fahmna hadda waxaan kale ku soo qaadanaynaa ya'da yaanyuur oo ah bisada ama makuleesha yaanyuur waxaa ugu dambeeyo xarafkeena ah yaanyuur ra'da wax maa ku xiga maya waxaan ku dareynaa ayaan ku dareynaa waxaan leenahay yuur maxaan ka hormarinaynaa ya iyo a iyo na'da oo ah yuur laba shibana isku yimaada oo ah na iyo na'da waxaan ku dareynaa shibanaha iyo shaqalka ka dambeeyo ya'dana waxaan ku dareynaa shibanayaasha shaqalada iyo shibanaha ka dambeeya ayaan ku dareynaa oo ku xiga ayaan ku dareynaa marka waxaa waaye yaanyuur waa yaanyuurta marka xarafkeena ya'da waxaan ka qaadanay yaxaas iyo yaanyuur waa laba xayawaan yaanyuurtan waxay ka mid ah xayawaanada dabjoogta ah kuwa dadka la nool af Soomaaliya waxaa lagu yaqaanaa xayawaanada dadka la nool sida digaaga bisada ama mukuleesha ama yaanyuurta ariga iyo kuwaas waxaa loo yaqaanaa dabjoog
xayawaanada dabjoogta. duurjoogtana waa sida libaaxa, waraabaha oo kalena waxaa lahaa duurjoog, duurkay ku noolyihiin, kuwa dadka lama heshiin karaan, waxaa ka dhexayso inay is ugaarsadaan. okay, ya-da xarafkeen ereygeeni ugu dambeeya ka qaadanaynaa oo ah yaanyo. yaanyo 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 waxaa dhahnaa waa tomaatadoo kale. tomato meelaha qaar waa laga dhahaa, tomatona waa af ingiriis. marka yaanyo waa yaanyada cuntada lagu darsado. okay, yaanyo. waxaa u dambeeyo yo, ya iyo o. yaan yo. waxaan isku imaada mar kale laba shibane oo ah na iyo ya-da waxaan ku dareynaa shaqalka ku xiga oo ah yo, na-dana waxaan ku dareynaa yaa ayaan ku dareynaa oo ah oo ka dambeysa. waxaan leenaha marka yaan yo, sidii marka ayaan iskugu qabanaynaa yaanyo. marka waxaan ka baranay xarafkeeni ya-da, yaxaas, okay, iyaanyuur, iyaanyo ayaan ka baranay saddexdaas xaraf. wixii dheeraadaad ka taqaanid commentiga. marka guud ahaan cashirkeeni af Soomaaliga meeshaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barashadiisa. marka af Soomaaliga waxaan ka baranay 20 cashar, laakiin Englishka ayaan sii wadi doonaa ilaa aan maxaa la yiraahdaa ka gaarno advanced English horumarsan. marka inta u baahan barashada af Soomaaligana hadda wato casharadii 20 ahaa ay aan soo dhaafnay. Englishkuna casharadiisii waa daawan kartaan. aniga waa Teacher Cusmaan Cabdulqaadir Banjar. waxaan idin leeyahay channelka ku xirnaada, wax badan ka barta, subscribe saara. bulshada intuu baahan luqadda Englishkana kusoo xira. channelku Englishka ayuu diiradda saari doonaa, xoogana saari doonaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.